subxaanallah war degdega oo naxdin leh kabiir dugsi quraan u dhigaya arday fara badan oo iskugu jira gabdho yaryar iyo wiilal ayaa farxumeeyay mid ka mid ah gabdhihii dugsiga qaybta ka ahaa waxaa soo shaabaxay kiis cusub oo kufsi naxdin leh kadib markii gabar aad u yar 7 sano jir da'deedu lagu sheegay ay qoyskeedu ku ogaayeen dugsi quraan balse kabiirkii dugsiga ayaaba gabadhii farxumeeyay oo u galmooday xaaladeeduna waa halis kiiskan kufsiga ah galmada la xiriira oo maanta ka dhacay degmada warta nabadda ee gobolka banaadir ayaa wararkii ugu dambeeyay idin soo gudbin doonaa halka ay xaaladu marayso balse intaan u gudgelin warbixinta waxaan ka codsanayaa inaad marka hore page-ka nagu soo birto aad filo daato sina sheegayso muuqaalka si saaxiibo badan u gaaro falkan aadka loogu xumaaday oo ka mid ah falalka sida weyn Soomaalida ay ugu dhidhiso oo kufsiga iyo tacadiga iskugu jira ah laguna kaco haweenkeena Soomaaliyeed ayaa waxa uu markaas ka dhacay mid ka mid ah xaafadaha degmada warta nabadda ee gobolka banaadir dhacdooyinka la xiriira ee silsilada ah kufsiga loo geysanayo farxumeenta dumarka ayaa ah wax soo jireen ah oo in badan oo Soomaali ka mid ah aad ay ugu dhaceen falal arrimahaas la xiriira balse tani waa mid kale oo markaas aad u sii niijabinaysa dumarkeena Soomaaliyeed macalinka ayaa dugsiga ugu tagay si ardayda uu u sii baro quraanka asigoo markaas la faray inuu ka dhigeyso casharada kadibna uu markaas quraacad u fasaxo hase yeeshee waxaa la sheegay in dhammaanba ardaydii kale uu fasaxay kadib ayuu gabadhan markaas reebtay oo 7 sano jirka ah wuxuuna ku sameeyay fal markaasi ka baxsan bini'aadanimada asigoona u galmooday waa 7 sano jir aan u qalmin in markaas waxyaabahaas lagula kaco da'diisuna waxaa lagu sheegay 20 waa dhalinyaro markaas aad loo hadahayo inuu ka mid yahay dhalinyarada markaas qooqa ku raagay falkaas kadib markuu dhacay xaaladdu gabadha ayaana laga deerinayaa waxaana loola cararay mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho si xaaladeeda caafimaad halkaas loogu dabiibo dadka deegaanka ayaa iskugu soo xoomay dugsigii falka uu ka dhacay waxa ayna dadkii gabi ahaanba ay burburiyeen ama markaas ay dumiyeen dugsigii halkaa ku yaalay sabab la xiriira inuu halkaas uusan ka sii shaqeyn karin caruurna uusan wax bari karin maadaama fal aad u fool oo la xiriira kufsi kabiirkii qooqa awgeed gabadhii uu macallinku ahaana kufsaday ayaa halkaas lagu soo bandhigay oo dadka shacabka ah ay markaas ay ku xoomeen kadibna la qabtay loona gudbiyay hay'adaha ammaanka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya si loo marsiyo ciqaabta u dhiganta falka uu geystay qoyska gabadha oo ka muuqata niyad aad u weyn ayaana markaas ka gambaday in ay warbaahinta la hadlaan oo ay faahfaahin ka bixiyaan sida ay wax u dhaceen iyo xaaladda gabadhooda sida ay tahay kiisaska la xiriira kufsiga ama tacadiga loo geysanayo dumarka ayaana ah kuwa markaas soo jireen ah oo aan waxba laga qaban kiisas kan la mid ah ayaa dhacayay bilooyinkii iyo sanadihii la soo dhaafay iyadoona lagula kacayay caruur aad u yar oo da'dooda aysan gaarin in loo galmoodo xitaa mararka qaar waxaa dhacisay in ragga qaar ay u galmoodaan rag kale oo caruur ah kuwaas oo aad dadku ay ula yaabaan ma jiro weli wax war ah oo ka soo baxay maamulka gobolka banaadir iyo kan degmada iyo hay'adaha ammaanka ee booliiska Soomaaliya si markaas wax looga ogaado falalka la xiriira tacadiga iyo la xiriira haweenka loo geysanayo kabiirkii dugsi quraanka ee kufsiga iyo farxumeenta u geystay gabadhii uu macallinku u ahaa ayaana markaas ceebtiisa banaanka la soo dhigay waxayna alla ugu baryayaan dadkii xaafadda ee iskugu soo baxay in kabiirkiisa sidaas u dhaqmay qalabkiisa uu markaas ku shaqeysan waayo mustaqbalka dambe maadaama uu ku dhibaateeyay 7 sano jir aan u qalmin in loo galmoodo warbixinta like saar sina share garay si saaxiib badan u gaaro aad baad u mahadsantihiin